maanta markii aabbo gabadhiisii arrinta noocaas ay ku dhacday xanuunka ay leedahay waxaa dareemi kara keliya qofkii aabbo ah ama gabar dhalay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن صلانا دمان دتك halkan ku jira iigu jiro Facebook page kayga Dayax Dal Noloshe soo dhawaada soo gala fadlan soo gala waxaan rabnaa inaan ka hadalno arrintii labada gabdhood ee caruurta ahayd midna 3 jirka midna 4 jirka ahayd sida qaldan loola dhaqmay inaan ka hadalno balse waxaan sugaynaa marka hore inaad dad badan noqotaan oo aad si fiican u soo gashaan. fadlan soo bata si wanaagsan u soo gala. مهافيك الله هاي معان وسلامه وكا قاده سلام الله محمد عوالة محمد أحمد thank you and عبد القادر اسمان دقود dayax maxaad ka hadlay waxaan rabnaa inaan ka hadalno arrintii ahayd labada gabdhood ee yaryareed ee la kufsaday arrinteedii aan rabnaa inaan ka hadalno iyo inaan maxaa la ii sheeg maadaama gabar aan dhalnay gabarna la dhalatay gabarna dhashay inaan caawimaad maxaa la inta tabarteena isugu darno Soomaalinimo iyo walaalnimo marka arrintaas laga hadli rabaa insha Allah balse waxaan sugaynaa inaad dad wanaagsan ku soo gashaan marka hore. injineer xasan inay dhammaantiin waa idin salaamay soo dhawaada salaan sharfana idinku salaanay aniga iyo walaalkay Xuseen waa isla joognaa ugaas ilaahay khayr ha ka sii aamiin anaga inta muslimnaba ilaahay ha ka sii oo u beernaxda dadkani marka waxaan idin leenahay soo dhawaada si wanaagsan u soo gala markaas kadib insha Allah waxaan bilaabi doonaa inaan ka hadalno arrinka haduu la yiraahdo hadda ismaan lacagta halka lagu soo diraa marka walaal waxa ku soo diri kartaa hadii aad Muqdisho joogto iyo hadii markaas Hargeysa aad joogto adiga maxaa la ii sheeg Somaliland waxa lagu soo diri karaa FC Plus ahaan lambarka halkaas lagu soo qoray I think wala arkaa Xuseen ma la arkaa lambar si fiican haddii ama wadan kale joogto haddii salaam bangi arabteena isticmaashana sidoo kale lambar salaam bangina halkan ku oo maxaa la ii sheeg ku yaala والله هل في عم بعد هسا وكوجو أوجا جارد دتك أو ما هتسنت ولا الكي لا يكشرفه ده يحضر المشروع مثلا صاحبي يقول نسأل وعين سلامي حد شن بقول إيه مرة ولي لكن وحاليا أنا سيف عن صوغ أنا فرينتين وذا جارتو مركا ما بلاونا مسه وحير أو سجن إلا لح بقول دي جاران أوكي واي لح بقول هدوابا already بقول أو والد شو قال لح بقول يعني هاي هذا ما بلاوي مسانا بلاوي وسؤال دوي دتك كدب horta السلام عليكم ومahadsantiin dhamaantiin waxaan idinku salaanaa salaanta islaamka salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalahay halkan iigu jiro ee gabdhaha iyo wiilasha iyo odayaasha imaamooyinka hooyooyinka aabooyinka habaryarada adeerada abtiyaasha dhamaantiin isugu jirtaan waxaan idinku salaanta islaamka salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxa idin la hadlaay ma aha wiilkii fanaanka ahaa ee waa wiilkii dhalinyarada ahaa ee maxaa la ii sheeg jeclaa wanaaga iyo samaha dadka
maantana waxaan ka hadlayo ma aha wax fan iyo wax u dhow iyo wax la ag dhigi kara xitaa ma aha waxaan ka hadlayo umana baahni inaan ka hadlo maanta waxaan ka hadlaynaa waan rabnaa inaan uga faa'iideyno maanta alxamdulilah ilaahay magacuuna siiyey waxaan rabnaa inaan uga faa'iideyno dadka maxaa lahaa dhiban maanta maxaa lahaa magaaladeenan joogo waxaana insha allah isku dayi doonaaba hadduu ilaahay yiraahdo inaan fanka dhankaas uga bato oon dad caawinta uga bato maadaama hadda aan awoodo inaan wax badan maxaa la ii sheego dad badani qaarkood aanan qaban karin ama awoodo inaan qabto marka insha allah waxaa marka wiilka idinla hadlaayo waa wiilkii u baahnaa inuu caawiyo labadii gabdhood ee yaryareed ee qaladka laga galay waxaan rabnaa inaan ka hadalno arrintaas ku saabsan labadaas gabdhood oo aan caawino oo intii kalaamkeena ah soomaalinimo walaalnimo haddana waxa laga hadlaayo maanta oo qaladka laga galay ma ahan dad waaweyn ama gabdho waaweyn oo qaangaaro ah ama maxaa lahaa ii sheegeen dad maanta maxaa lahaa ii sheeg masiibadii ku dhacdo si fudud uga baxsan karo waxay ku dhacday waa saqiiro 3 jir iyo 4 jir waa hodan iyo wixii la mid ah oo kale maanta markii aabo gabadhiisii arrinta noocaas ay ku dhacday xanuunka ay leedahay waxaa dareemi karo kaliya qofkii aabo ah ama gabar dhalay marka waxaan rabno toobiga ugu muhiimsan oo rabno inaan ka hadalno idinkana idin fahansiino waa intaas soona dhawaada waxaa anaga rabnana waxay tahay hadda inaa idinkana inta kalaamkiina aad ku caawisaan oo aad anaga noo soo marisaan oo ilaahay dartiis nagu aamintaan